السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال بالكستو دونيدا ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena caafimaadka iyo mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso badan daawadiyaal barnaamijkeena caafimaadka waxaan ku soo qaadan doonaa 11 daawo ee ugu wanaagsan dunida dawada koowaad ee kamid ah 11 daawo ee dunida ugu wanaagsan waxa weeye daawadiyaal quraanka kariimka ah quraanka sharafta badan hadalkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee qiimaha iyo qaayaha agteena kale ee ruuxi fahma ee raaca ee ku dhaqma aanu adduunka iyo aakhiro labada mintoona aanu guuldaraysanin inuu dawo yahay maxay noo cadaynay ilaahay baa noo sheegay inuu quraanku dawo u yahay dadka muuminiinta hanuun u yahay oo quraanku waxa weeye dawo la isku daweeyo uu yahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inuu quraanku uu dawo yahay oo la isku daweeyo nabiguna alayhi salaatu wasalaam dadka uu ku daweyn jiray uu ku akhri jiray uu ku tufi jiray waxa weeye marka quraanku waa maxay waa dawada dhabta ee rasmiga ee adduunkan aynu saaranahay dul taala qofku hadii uu aamino in uu ku bogsanayo oo ku bogsanayo in aad rumaysato horta marka ugu horeysa niyadaada geliso inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala kugu bogsiinayo oo isaga ay ku jirto gacantiisa waxa weeye dawadu ya caafimaadku taaminsano muslimiin baynu nahay waxayna la gudboon in aynu aamino kitaabkeena ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo soo dejiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala in aynu rumaysano maadaama ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu yiri quraanku waa dawo in aynu marka ugu horeysa waxa koowaad aynu isku daweynayna oo noqdo quraanka ee ayna noqonin dawada farmasiga taala iyo dhakhtarka aynan aaminin inuu dawo inoo yahay dawada labaad ee adduunka ugu wanaagsan daawadayaal waxa weeye biyo fara badan oo la cabo biyaha fara badan oo qofku cabo waxyaabaha ay ka dawada tahay waxa kamid ah daawadayaal cudurro fara badan oo runtii la sheego adduunka in ay dawo ka yihiin biyuhu ayaa runtii hadda la ogaaday isla markaana mucjisooyinka la yaab kale ee waxa weeye hadda la ogaaday waxa kamid ah in biyuhu ay yihiin waxa kaliya ee uu jirku aanu ka maarmi karin sinaba kama maarmi karo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay waja'alna min al-maa'i kulli shay'in hayy afala yu'minuun هذه آيات هادو قف كفير صدق وعجيب وحياة فربنا مرتي كتير أو كدوجن إن ده وحي الله سبحانه وتعالى لي شيء كستو الدنيا ده كنول وحي الله سبحانه وتعالى وكأبوري وبيو وأنا حقيقة ترتا حتى آيات القرآن أي الله سبحانه وتعالى وشيء والله خلق كل دابة من ماء إلهي الدون كوح كستو دول سارن أو نولا وحوي دابة wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka abuuray waa biyo marka waa maxay nooluhu sidiisaba waa maxay biyaha kama maarmi karo biyuhu waa laf dhabarta nolosha waxa weeye life is water and water is life wakaas biyuhu waa maxay waa noloshuna waa biyo marnaba qof kama maarmi karo marka ugu yaraan inaad maalintii 3 litir ama 2 litir aad cabto oo biyo waa daruuri waa lagama maarmaan jirka qofka bini'aadamka waxa la yiraahdaa marka 70% marka loo qaybiyo waa biyo inta soo hadhay ba waxa weeye cad iyo hilib iyo laf ah marka waa maxay qofkii bini'aadamka ahaa dham noolaha gabigiisa wax la leeyahay waa maxay waa waxa uu ka koobiyo biyo marka waa maxay biyuhu waa laf dhabarta iyo nolosha iyagu وحتى واحد عذرات قار كوا وين أو كلا يكمل يهين تيبي ذو كلا إني مرك قار دوكا يهين كلي حنون كلا شيء وحيابها صلا واحد دوكا بيها سدوكا صدح هردك وقفلا أو قاعد ساحته ودوين كأونا سندوك وأنا اللي قاعد حقيقة مركز هردك وقفلا عاد حوي ساحته شركة قنوح دريمية waxa weeye nasasho aad u fara badan firfircooni aad u fara badan cibaadadiyo si fiican u gudato oo waxa weeye aanad ku dhex luloonin oo aanad ku dhex caajisin waxa weeye shaqadaadii oo wanaagsanaata qof waxa weeye firfircoon oo furfuran oo waxa weeye kaleera oo waxa weeye qalbigiisa iyo wajigiisaba laga dareemayo farxad in aad noqoto ayaa waxa weeye keensanaysaa
hurdo kugu filan oo uu qofku seexdo bal u fiirso qofka aan hurdo fiican seexanin subaxa indhaha cas wuu iska xamaansanayaa qof kasta way iska raahaysanayaan dadkoo dhan way isleynayaan waxa weeye waa qof cadho badan waa qof sidaan ah yacni qof maxaa hurdadu qofka ku yartahay inta badan waa dadka noocaas marka waa maxay dhibaatadooyinka aadka u waaweyn ee qofka yacni noloshiisa burburiya waxaa ka mid ah saamaleylka iyo soo jeedka marka inuu qofku hurdo ku filan uu seexdo waa muhiim qofku naftana kolba intaad barto wey haddaad 5 saacadood naftaada barto oo aanad 5 saacadood minidna ku darin minidna aanad ka yaraynin caafimaadkaagu wuu wanaagsananaya waxaynu ognahay dadka qaar maxay seexan jireen culimada qaar baa la tilmaamaa inay cishaayiga iyo maqribka inta u dhaxayso kaliya ay seexan jireen noloshooda oo inuu waqti kala seexan inta kalena ay wax qori jireen ama wax akhrin jireen yani dadkaas bini'aadan bay ahaayeen laakiin waa maxay taymka kolba aad naftaada u samayso weeyaan 8 saacadood way la yiraahdaa inta badan qolooyinka caafimaadka iyo qolooyinka reer galbeedku inta badan saas ay yiraahdaan laakiin qofka bini'aadanka nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaaba inoo sheegayo حتى هذه حكمتها كتير حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي كميتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي عشايق هدي أتوكتو يعني قف ينوس سدا كسيه عشايق صلاة عشايق قرمين تكنا تخطبها دي تكنا وعوي تخطبها دي مركز تقف في صلاة تكنا وسكت سيحضو الصبح يحس في عم بوقع عيا وحوي كالهادي بوقع عيا وكالهادن وين أجنه هي وحيابها بركات كمدة وصمية أي كميتها مركوا محي ودي بركة كتيرته qofkii inuu kalaho subaxii salaad hore kalaho xataa arsaaqdiisa ayaa waxa weeyaan u barakoobaysa oo de Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu furaya marka waa maxay hurdadu qayb ay ka tahay nolosha caafimaadka qofkana qayb ay ka tahay waana dawooyinka ugu wanaagsan dawada afraad waxa weeye hawo nadiif ah qofku inuu qaato hawo nadiif ah inaad hesho waa muhiim oo oxygen-tana qaadanayso inay nadiif ahaato waa muhiim الحمد لله إنه ما أنتوا حنكون الله وطن هودي سعين نظيف تهاي أو أن ورشة بدن لهين وحوي هودي سعين وسخوبين أو إير بوليشن على لهين وحوي الحمد لله إلهي بينكم هنقنا مركوان هو ذا إنه قاضن إنه نمعه إلهي سبحانه وتعالى ونسيه أو أباهن إن مركز تكون ما هنقنا أو إنه كفايديس عافي ما تلاقي بك قيب قاضن نسا شن socod joogtaa maalin kasta waa inaad leedahay waqti aad yani ama jirkaaga jimicsi geliso oo aad jimicsato ama aad socodsiiso yani waa inaad jirkaaga ka shaqaysiiso xubnaha jirkaaga waa inaad ka shaqaysiiso oo ayna sidii xalay ay kusoo tooseen haddii ay meelun farsaa u fadhiyaan oo haddana ay meelnaba u dhaqaaqin in hal mar aanad lugna waxa weeye aanad rogin caafimaadkaaga ayaa u daranta koow gobooba horaad u gaboobi doontaa saddex xanuuna fara badan baa kugu dhici doona sida macaanka iyo waxyaabo kuwa kale la midkaaba yani qofkii dhibaatooyin fara badan ayaa ay ku keenaysaa jimicsi la'aantaas waxa kaloo ka mid ah daawooyinka adduunka ugu wanaagsan daawada 6aad oo ah raashin kugu filan oo dheelitiran waa inaad hesho macna maxaa looga jeedaa balance diet cunto dheelitiran waa inuu qofku qaato cunto dheelitiran marka lagu leeyahay macnaheedu maaha inaad cunto fara badan cunto laakiin waa in aad 5 qaybood ee cuntadu ay leedahay inta badan marka cuntooyinka la qaybinayo 5 cunto kooxeed baa loo qaybiyaa vitamin mineral waxa weeye ama vitamin macdan dux carbohydrate oo cunto energy laga helayo iyo protein yani waa inaad cuntadaada cunaysaa intaaba laga helayo cuntooyinka runtii laga hela waxa kamid ah caanuhu waa وحوي cuntada kaliya ee laga helo shanta qaybood protein baa laga helaa macdan baa laga helaa dux baa laga helaa waxa laga helaa minerals waxa laga helaa waxa weey carbohydrate inta boo laga helaa marka waa maxay ina hadaanad heli kareynin balance diet inaad cuntooyinkaaga kala cunaysay aad ku kaafto caanihii iyo biyihii iyo nafaqooyinkii yaryar kale aad awoodi karaysay inaad qof khudaartii cagaarnayd waxyaabahaas oo dhan inaad ku kaafto ee muhiim ah laakiin nagu inta badan Soomaali ahaan marka laga hadlayo cuntada dheeliga tiran ma cuno runta marka laga hadlayo waa yahay 7 falaaraha qoraxda oo la isku dhigo falaaraha qoraxda ama falaaraha cadceeda yani ee la isku dhigaya runtii isaguna caafimaadka ayuu wanaagsan yahay oo waxa laga helaa vitamin D oo isagu jirka u wanaagsan marka
difaacaaga jirka ayaa kordhaya oo wanaagsanaanaya oo caafimaadkaagaba kor u kacaya markaad fallaadhaha cadceedda isku dhigto. haddaba fallaadhuhu way kala duwan yihiin. fallaadhaha cadceedda la isku dhigaya waa ka galabtii weeyaan. galabtii laga bilaabo 3 galabnimo ilaa iyo 5 intaa u dhaxaysa cadceedda galabtii waa inuu qofku hadduu isku dhigo runtii waxa uu ka helayaa caafimaad iyo dawo ayuu ka helaya. inta badan waad aragteen odayaasha aad ka gaboway maxay isku dhigaan cadceeddii galabtii iyagoo cadceedda fadhiya darkas. sababtu waa maxay? wuxuu la ogsoon yahay in caafimaadkooda qofka waa maxay ay kordhinayso oo ay waxa weeye ka qayb qaadanayso. dawada 8aad ee adduunka ugu wanaagsan waa malabka saafiga. malabka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inuu malabku wax weeye dawo yahay oo wax weeye uu dawoonka yahay. bal iska daayay dad badan oo wax weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam dad u yimid ayaa uu faray in wax weeye malabka ay isticmaalaan oo cabaan. oo qisa jirtay oo ninba nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid saxaabiyan deetana wuxuu ku yiri walaalkay baa xanuunsanaya. deetana wuxuu ku nabi malabkiibu siiyey haddana uu kasii daray haddana uu yimid haddana wuxuu kasii daray aduu marin siduu ugu odwaday ayaa waa maxay ayuu markii dambe ku bogsaday oo kolba dee kasii daritaankan uu kasii daray waxa laga yaabaa xaddigii uu u baahnaa inaanu siinin ama uu ka badiyey ama uu ka yareynayay. markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku lahaa malabka sii uu ku dawoobi haddana markuu dee siiyo haddana uu ka xanuunsanayo uu odhan nabigii ilaah uu kasii daraya ilaa markii dambe uu ku bogsaday. oo waxa weeye dee waa maxay marka xikmadda ku jirta waxa weeye malabku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha adduunka dawooyinka adduunka ugu wanaagsan. dawada 9aad ee adduunka ugu wanaagsan waxa weeye waa xabatu sawda ama waxa weeye baasha la yiraahdo maxay xabaasuudu waxay ka mid tahay dawooyinka adduunka ugu wanaagsan. nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay oo waxa weeye waxa weeye xataa geerida bayna dawo ka ahayn mooyaane yani cudur oo dhan dawo ayay ka tahay. ayay dawo ka tahay. marka waa maxay in aad xabaasuuda runtii aad ku dadaashaan aad iyo aad u isticmaasho. haddaad xanuuno fara badan dareento inaad dawada aad ugu dadaasho waa muhiim. dawada 10aad qaybta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey ku qanac shar iyo khayr mideed intaa noqoto. haddaad doodayso caafimaadkaagu inuu wanaagsanaado wax qof caafimaad qaba aad noqoto caafimaadkiisu wanaagsan yahay aad noqoto ilaahay wuxuu ku siiyey ku qanac. faqiir buu kaa dhigay qof waxa weeye madow buu kaa dhigay qof cas buu kaa dhigay qof sidan caafimaadkiisa wax ka dhibayn buu kaa dhigay kaas waxa weeye lacag intaasaa lagu siiyey intaas yacni qofka ilaahay subxaana wa tacaala nolosha qofba meel buu ka taagay. qofba meel heerkiisa qofba level buu taagay. marka levelka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey ama waxa weeye qadarka inta ilaahay subxaana wa tacaala qaybta ilaahay ku siiyey in aad ku qanacdo. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إلهي بقى بينه كلا قيبيو ده وحوي نلاشة أيا كوس كلا سعناس هدي دمان تذكرنا وذا قني هان لهين دمان تذكرنا وحوي وذا هان لهين تذوذا عافمات قبع ده وحوي نلاشة موي معهم بميالتين لكن وام حي نلاشة وام حي ولا سكودي ترى إلهي سبحانه وتعالى كان أيوه حكوت الصيا عافمات كهستا وأوليه هي بل كان حنون صنياك kii xanuunsanayay ayaa waxa weeye yani marka qaar lagu imtixaamaya oo la tusanaya caafimaadku wanaaga uu leeyahay ilaa marka dambe waa maxay waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad siiyo. marka maxaa laga rabaa in aad adiguna qaybta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey aad ku qanacdo waxay doontaa noqoto. wixii ilaahay kuu qoray ku qanac wixii ilaahay qaybta kuu siiyey ku qanac aamin shar iyo khayr ku doonaha noqday. dawada 11aad waxa weeye mar kasta inuu qofku ku celceliyo kelmadda laa ilaaha ila allah muhammadar rasuulullah. laa ilaaha ila allah muhammadar rasuulullah qofku inuu kelmadda kalimatu tawxiid uu ku celceliyo si dhabana uu rumaysto. sidoo kale uu salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu aad u badiyo. waxay dawo ka tahay murugada dhibaatada ku haysanaysa hawlaha adduunyo culayska ku fuulaya dhibaatooyinka aad la kulmayso waxyaabahaas oo dhan waxa ka dejinaya waxa weeye dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xuska ilaahay carabka mar kasta ku hayso.
ayaa runtii kaa khafiifinaya. oo waynu ognahayo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam salliga nebiga waxyaabaha laga helo waxaa ka mid ah saxaabi baa nebiga calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeyaan garanaynaa inuu dee ku yidhi haddaan bal ka waran ducadayda ka dhigo 3 meeloodoo meel aan ka dhigo salligaaga 2 meelood ilaa uu markii dambe soo gaadhsiiye maxay inaan ducadayda oo dhan ka dhiga salligaaga. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haddaad sidaa samayso waxa weeye ilaahay wax alla wax dhibaato ku saaran iyo humuum iyo dhibaato iyo culays iyo murugo ku saaran wuu kaa qaaday, dembigaagana ilaahay subxaana watacaala u dhaafay. ka war wax ka wanaagsan baa jira may. haddaba haddaad dhib dareento ilaahay subxaana watacaala ka magan gala dhibkaas. haddaad yaab aragto xumaan ilaahay baa ka nasahandhe. haddaad faraxsan tahay ku salli nebiga calayhi salaatu wasalaam. haddaad murugaysan tahay ilaahay subxaana watacaala u noqo. meel kaloo ilaahay loo laabto oo ilaahay aan hayn ma jirto. isagaa u noqo, isaga weydiiso inuu murugada kaa dulqaado, dhibaatada kaa dulqaado, waxa weeye farxad noloshaada soo geliyo. waa maxay? haddaad aragta shay qurux badan oo ku cajab geliya ilaahay abuuray ayaa xumaan ka nasahandhe. ku bilow wax kasta oo aad bilaabayso bisinka ilaahay subxaana watacaala. magaca ilaahay ku bilow, bismillaahi raxmaan raxiim dheh. ilaahay ku mahadi noloshaada oo dhan ilaahay ku mahadi. daawade waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu muuqaalkani uu ku raaligeliyo. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa qof kasta oo xanuunsanaya inuu xanuunka ka dulqaado. qof kasta oo dhibaataysan inuu ilaahay dhibta ka dulqaado. qof kasta oo murugaysan inuu ilaahay subxaana watacaala murugta ka dulqaado. faraj u furo, nolosha u wanaajiyo, nolosha waxa weye dhanka wanaagsan uu ilaahay subxaana watacaala ka tuso, dhanka xun uu ka laabo, xumaanta qalbiyadeena ka saaro, murugta iyo xumaanta iyo xiqdiga iyo xasadka ka buuxa qalbiyadeena inuu ilaahay subxaana watacaala ka maydho ayaan ilaahay subxaana watacaala inooga barya. aad iyo aad baad mahadsanta daawada. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala muuqaaladan iyo muuqaalo kaloo xiiso badanba in insha allahu tacaala idiin soo diyaarin doono. haddaad idinkuna laygtan nagu caawisaan oo aad nagu dhiirigelisaan, waa dhiirigelin bay noqotiniyow markaad layg noo saarta muuqaalkaaga uu dad badan sii gaadho oo anigi waxaan ku dhiiranaya aniguna in aan muuqaalo kuwan ka sii wanaagsan oo ka taya badan aan kuu soo diyaariyo. aad iyo aad baad mahadsantihiin daawadayaal. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.